wiilkay waa habar gidir saruur yaa ka taa cumar ibraahim yaa ka taa odasigo cumar maasha allah yaa ku reebtiya iska dhala ah odasigo cumaraad iska dhala waaya codka ma dhegaysatay gabadha nimca ibraahim saahid haa codka waa dhegaystay haye maxaad ugu jawaabaysaa codka horta codka waxaa waaye waa ka jawaabaa haye waxaa uga jawaabaa horta gabadhan si sharaf loo wanaag la isku baranay haye waxaa waaye bil barakaysan oo ramadaan ayadoo lagu jiro weliba haye si sharaf la isku fahanay familkeedan uga doontay oo aabaheeda ka doontay ugu xiray waaya waxaa waaye ramadaankii markoo dhammaadane oo ciiddii la gaarana waa ii timid maasha allah nolosheena hore u wadanay aroos iyo farxad waxaa samaysan karnaa samaysanay waaya wanaaggeennii hore noogu socday ayadiina waxaa waaye safarkeeda soo dhawaado arrimo badan oo darteed xilli dhaqsiya baxday elboorka Jomo Kenyatta Nairobi waxaa ka diray ayadoo faraxsan oo maasha allah ah oo xaaskayga taa aan ogahay oo xilli walbana aan ka warqabo xaafadeedii nabaday ku tagtay waa wada hadli jirnay xilli kastana oo isku fiicnaan haye xoogaa adduunyada iska cariiri noqotay xilli xunay meesha ku aaday oo waxaa waaye shaqalaani wareeri jirtay gurijoogta iska ahayd meeshaasaa ugu warqabay waaya xilli walbana waxaa waaye waxa kaliya aan ka fikiri jiray waxay ahayd sida igu soo laaba lahayd iyo inaan mar kale isku soo laaban iyo inaan meel wada degnaan waaya oo mararka qaar xitaan kala hadli jiray inay meeshaas kasoo guurto oo stresska badan oo Nairobi bilaa stress iska imaato waaya maasha allah arinku sidaas oo noo ahay waxaa meesha ku biili jira iyadoo joogto Minneapolis waaya waaya qadka kaa xumaana waa soo wacaa mala koola ku soo wacaya umari kirada gurigeeda ka bixi jiray qadka kaa xumaanaya qadka ay soco meeshada ku biili jiraa tiri hadda soo wacdo kame okay waaya haye marka bishaan ku biilayay ku ogaay wanaagii sharaf anaga dhaxeeday xumaan hal maalin isma kaan dhaxgelin khilaaf iyo isqa qabsi reer markasta waa yimaadaa oo dadka ma dhamaado dad haddana dhalinyaro laakiin waxay ahayd normal oo weligeena family iyo isqabsigeena dad uma gaarin ilaa xilliyadii dambe maahane maasha allah inoo ahayd culaysya adduunya xitaa waa soo wajaheen ayada xitaa way ogtahay inay sheegtan oo laga yaabaa oo xitaa aniga aan markaas tabro haynin waa isla mootinay oo wejigayga magaalada ku joognay haye isha culaysadaas maxaa ka mid ahaa culaysada maxaa ka mid ahaa xagga markay tagtay muddo 4 bil ay shaqalaan ahayd 4taas bil waxna sanaysan cid maanta oo caawinaysa wax taraysana ma jirin haye anigana qofkii oo xaaskayga ah oo meeshii joogto walwalkeedii rafaadkeeda way dhibaay waa wada hadalnay waxaan dhahay xala maxaan sameynaa tigid ma kuu raadiyaa isaga kay soo laaban guriga ma iska fasaxee waxay tiri ma soo laaban kari sababtoo aniga rafaad horaa soo maray meel halisa kasoo laabtay sharcigayga wax walba oo laga qaadan rabay qof oo homeless noqon rabay mar ilaahay badbaadiyey mar kale inay sidoo kale ugu dhacdo gurigana ma fasaxi kari waaye maxaan sameynaa dha waxay tiri maadaama adi magaalada Nairobi aad joogtid oona shaqaysatid oo qof magaalada laga yaqaana aad tahay waxaa samaysaa wejigaaga aan wax ku helo deen iyo wax noo raadi anaan iska bixinayo muddo markaan shaqada bilaabo 3 bilo u horeydo inta u muhiimsan ku bixinaa aniga warkeedii ilama xumaan waa war fiican oo ila ekaaday haddiiba aan maanta deen helno muddana iska bixinayno intay rabtay aan usoo qaaday waxaa waaye
afartii bil kiradeeduna iska bixinaysay shilay inta gashay xitaa rafaad ku dhaco waxaa waaye gaarigaaga waxaan dhahay ka welwelin sidii oo kale waa iska bixi doonaa aan dhahnay sidii wax walba maasha Allah uga dhignay okay bishi meeqa sii jirta guriga deganeed horta waxaa waaye 1300 waaye marka 4 bil u dirayay oo bisha ugu yar aan 1200 u dirayay ما شاء الله شوف أنا سميس وياي وحاول سوي قد بينا tirada ugu daran ee dhacday kalwaanka اوكي وارد اسمع فهمي اسف على اسك سميس arrinta gobonimo waxaan rabaa inaan ogaado arrinta ku saabsan waxay tiri ninkan sawir aan qaawanahay ay one time sim igu soo diray oo iga qaaday arrintaas kala horta nin nagtiisa ahaan xil walbana waa wada hadlayeen way فيديو قاون iyo فيديو asturan ba 24 saac waxaan dhex marayay 100 فيديو way waligeena kuma fikirin xitaa fiidiyoada ay soo dirto safe ma dhihi jirin qof markuu sidii ugu soo diro waxa waaye waa daawo jiri waa meeshana isku ogeen xil walba mid asturantay midaan asturnaynba fiideo xaraan wax iga ahay meena qofka aan xaaskeyga waaye xil walbana intaas wax dhaafsan ma jirin way fiideo iga leedahay iyo ugu hanjaba ama ceebteeda aan raadiyana ma jirto wax kale iska dhaafay ana ayada waxyaabaha isku khilaafi jirin waxa kamid ah in TikTok soo gasho muuqaaladeeda soo dhigto way qofan diiday inay muuqaalkeeda TikTok soo dhigto ma aan qaawi karaa waxaaskeyga ah marka adiga ma jirtaa sawir ina u dirtay one time sin ma jirtaa maya ma jirto gacanta kor taag ma ku wallahi waay gu billahi wa tallahi inaad weliga gabadhaas ayadoo qaawin sawir ka qaadin idoo gurigu joogto hurdayso mashquulsan aadan one time sin ugu dirin WhatsApp waay gu billahi wa tallahi ina weliga ayadoo la joogto video qaawan aan ka qaadin aanan u dirin iyo sawir midna okay waayahay waxaan tagaynaa marka adigu markii gabadhan Cabdikariinow aad guursanaysa naag ma qabtay marka guursanaya ma u sheegtay naag qabto maya uma aan sheegin sababtoo hoogaa khilaaf jira gabadhaasna aad isugu xumeen mana dareemeyn in wax sii waara ay jirayaan waaya marka waxba uma sheegin waxaas dhaa ka maarantaa okay markii ay ogaatay inaad naag qabtay maxay kugu tiri markii ogaatay maba ogaaninba waxay ogaatay naag anoo qabi jiray bis ogaatay waa u sheegay inaan qabin kitaab ay marsiiday waa u maray inaan naag qabin oo ayada la qabo wax walbana u sheegay okay waaya waxa ku soo wacday qof nin garsoore maxkamadeeda ku soo wacay oo Itoobiya jooga xaq u jooga magaalada jooga Itoobiya waxay u dhahay waxa jooga dhagax buur ka soo wacay muxuu kugu yiri codku waa hayaa dadka raba in qortaad u sheegto habeenkii koowaad soo wacay waxay dhahay waxay soo dacwatay gabar Nimco Ibrahim la dhaho adeeg ka dacweyne fasaqaade na weydiisatay ka waran oo dhahay way waa u sheegay wax walba jiray iyo wixii uu soo dacweedo u sheegay waxaan qabin waa u sheegay iyo waxaan isku heesanay wax badan oo inta ka sheegi karina u sheegay waayo yiri wuu iga tagay wadaadkii wuxuu yiri kugu soo noqon doonaa wuxuu ii soo laabtay week iyo xoogaa yar kadib anigoo aad isku dhahay wadaadkii inta ka bax wuxuu dhahay arrintiina waa galnay waa rogrognay annagoo 7 garsooraa sidaas ugu dhaa wallaahi annagoo 7 garsooraa rogrognay waa fiirinay waxaa aragnay in arrintiina ay aadan gabadhuna fasaqmi karin sabab ama ceeb aan maanta ku fasaqdidna aan soo weynay ayaduna noo sheegi weyday su'aal kastoo weydiinayna sabab aan ku fasaqmi karno waa ka weyn aan ku fasaqmi kartaa ka weyn saas darteed kiiskiina waa iska laalnay wadaadkii sidaas ugu dhahaa maasan taara asaas ay ugu dambeeyay kadibna iyada ilaa hadashay u tiri anaa isfuray waayahan haddaa isfuri kartid waa adduunyo horumarsanaa joogta waxaa laga yaabaa inaa aad u tagteen okay waaya gabadha maadaama uu aabbaheed ku siiyey Ibrahim Saahid oo nin la yaqaana ah oo aabbaheed aad taqaanin markaa doonaysa aad qodbasii waxa ku guursano aabbaheed ku siiyey aabbaheed ma la hadashay markaas kugu tiri aabaheed waxa waaye waa wacay
habeen la hadlay abeeda si wanaag ula hadlay xoogaa salaamo kaliya waa ka xishooday musiiga xoogaa waa xanuunsan yahay waxaa is dhacay arrintan waxba u sheegin waxaa rabay wiil walaalkeed oo magaalo isku meel joogaan inaan u sheego wiilkii markaa wacayo barnaamijkan ku dacweynayo oo rabay inaan waco oo qorsheystay waxaa arkay wiilkii taleefankiisa oo blog aan ku jiro maskaxdeen ka shaqaysiiyey waxaa xasuustaa hadda kahor mar inay tiri familkay wax walba anadana dhex mar gelin waxaa iska qiyaasina ayada iga bloogtay inta u tagtay yarkii khilaafkeena markoo badnaayne hooyadeeda la hadlay maamo sharaf badan oo hooyo fiican aa dhashay waa la hadlay wax walba u sheegay oo kugu soo laaban ay tiri maamadii wiilina ma arkin wiilna kugu soo laaban okay markaad aragtay in ay jirin nin kalaan guursadle xuseen ogaadeen la yidhaahdo ma waxaad u qaadatay inay adiga ku xumayntaada ay kugu jaalanji garaynayso ma inay runtahaad aaminsanta maxaa aaminsantaha horta anuu iska baashaalayo oo magaalada iska joogaa waxaa liisoo sheergariyey muuqaalo anigoo weliba waxaa igu dambeeyay ayada wiig iyo xoogaa yar ka hor habeen isla hadlay inuu ka kaftanoo dhahay hadda ma laga yaabaa inay ii yimaatid maalmahan oo aan aad u ka kaftanay arrinteeda saasaan ku ogaayey waxaa waaye wax kale ma ogeen waxaa arkay hal mar video liisoo wada sheergareeyey arooskani waxaana arkay ani marka waxaa u haysta markii hore waxyaabo oo dadka filmaan iyo wax inta sameeyaan sawirro iyo wax galaane waxa ma qorshahaasaa kadib markaan dadka hambalyadoodii wixii dhan wada arkay waa iska dareemay marka waa aad la yaabay waxaa sugayna maaheenba aroos iyo waxaas wax walba in dhex mara anima isma dheheenba sidaana wax dhacaya marka hadda maxay kula tahay inay run ka tahay waxaad ay sheegayaan mise adaa lagu xumaynayaa see u aragtay see u fahamtay dareenkaaga muxuu kuu sheegayaa walaa horta waa runba ma guur maahay ka go-an mise barankii bay kugu samaynaysaa horta kama malaysana u malay maay gabadhaas waxaa waaye boqol aniga wanaaga ku aqaan waa qof aad u wanaagsan waa family marka maskaxdeeda yar waxaa waaye si fiican wax iguma caddeen dadka muuqaaladiina aad isula dhex marayaan waa bateen wiilkii hadlaa xitaa waa arkay waxaa laga yaabaa si inuu gabadha waxba ka ogeyn oon in la qabay iyo wax dhan oon ogeyn u sheegtay garoob ah camal marka ma fahmi walaa inay runtahay inay been tahay dhinaca u wada ma aqaani okay baaritaankii aan xal sameynaya waxaa ogaaday arrimo badan oo xasaasiya may kaaga sheekaysay in ninkii hore ilmaha u dhashay oo xiran yahay ay xirtay waa ogaay arrintaas in xarigga ma ogi laakiin waxaas inta kale waa ogaay inuu dilay ay dacaweysay ay looyar u qabsatay ay riski gashay lafteeda ay ninka wax gaarsiisay macluumaad noocaas ma kaaga sheekaysa hadda ka hor inay xirtay ma ii sheegin laakiin inuu dilay iyo rafaadka waxyaaba badan ku dhufto waa arkay okay marka laakiin kuma sheegin ninka inuu xiran yahay may iima sheegin okay adiga iidama ka wadaashay wax ku saabsan qorshe in maraykanka ay ku dhoofiso qorsho maraykan maya aniga xoogaa dada waxay ayaan war u sheegay oo aad igu diraya saa qiyaasayo waa u sheegay aniga waxaan dhahay lacag waa haystaa maraykan haddaa u baahanahay dadka asxaabteeda maalin kasta derbi ka boodaan sanadadii wax loo sugayana waqti tabarba uma hayay tan kale anayba ii qorshaysneedba inaa haddaa u baahdaba aad deeyo haddii ayada ii soo laabi weyso aan ka dhaadhici waa inay ii imaato nairobi joogto ani taga xagga anayba ii qorshaysneed barnaamij kale inay ayadii geesi iyo qof dumar inay geed weliga mahamin okay waayahay hadda anigu markaan talo kuu soo jeediyo maadaama aan dadka fuliga nahay ka waran haddii aan hadda maadaama iida qalad ay kugu samaysay haddaana codkeeda la dayn maadaama ay tahay gabar xaaskaagii ah haddaana codkeeda la dayn iyo waxaad ku hadaasheen aana waxay kuu soo duubta cod aana dadka la maqashiin wixii adiga dhex maraya familkeeda aan qof la maqashiin oo hawshii aan u galno si bareefada oo dee wixii qaladka u samaysa aan ogaadin gogol u dhiganno oon dhahno sideebad gabar mataqaanaa uu nin qabo oo nin kale u dhihi karaa maanta internetka inta soo fadhiisto anaa qaba arrintan maxay ku dhacday ogaadinu haddaan dhahna ka waran see u aragtaa arrintan
waa si wanaagsan waxaa waaye sida u badan oo familku dhahayaan waayo dhahayaan aad ila dagaalayaan dhahayaan arrintan ha gelin gabar codkeeda iyo faaraas ha gelin marka hadday kusoo diri xitaa dirina la dhahay codadka qaar way marka yani ma diiday adoo ka codsana wax ku saabsan gabadhaas inaad qof laga sheer garayn dhaqan ahaan oo aan ogaano bal ayagu moogta dadku waa moogta Soomaalidu waa qabiil moogtahay gabarno arinta badan dumarka u eexda marka maadaama qof dumar ay tahay xogaa ida xanaaq badan iyo stress u ka muuqday waxaan qabaa in biyo sarataga waa la sugayaa horta aan ka war sugna aabaheed wuxuu ka dhahaa arrintan walaalaheed waxay ka dhahaan waxay ka dhahaan laanu haddii hadda codka halkaa laga daayo ama qof u dirto dadka Soomaalidu waa dadka jecel buuqa jecel marka codkaasi iyaduna hadhow wuxuu ku noqonayaa ilmaheeda iyada utun buu ku noqonayaa mustaqbalkeeda utun buu ku noqonayaa annagana waxaan leeyahay nin habar giiro qabaa codkaasi waxaa ka keenay waaga marka anigu waxaan qabaa inaan cod iyo midna aanan mataqaanaa aan ayada aan codkeeda aan la dayn laakiin tolka aan ka war sugno waxaan kaloo qabaa ninkaas ka caytame ee xusaan ogaadeen inaanan loo baabi'in gabadha ma fahamti aan loo baabi'in marka adigu hadda naagti maad qabtaa mise way kaa furan tahay aniga waa qabaa gabadhaas meela ku furma jirin okay hadda waad qabtaa xaaskaaga weyn ha okay waxaan ku siinaya jaanis haddaad la haasho ehelkeeda iyo qaraabadeeda aabaheed halkan afarin u gudbiso iyo hooyadeeda ayaan way ogtahay inaan qabo okay maadaama xaaskaaga tahay halkan aabaheed iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo kala hadal farintaada gudbiso wixii aragtay inaad tiraahdo ku dheh horta ehelku waa ehel sharaf badan oo qiimo badan waana dad xididka iyo xushmad iyo sharaf iga mudan waxaa waaye waxaan jiran inaan waxba ka ogeena laga yaabaa aabba haddii gabadhiisa u timaada dhahda aaba ninkii hore waa kala tagana ninkaan igu dar inuu xitaa iska amina laga yaabaa waxba ogeen marka familkaas waxaa waaye sharafi kalena iga mudan yihiin waana ixtiraama laakiin midda u sheega waxay tahay gabadhiina aniga qabo okay ma jirtaa warqad ay kuu soo dirtay oo maxkamad ka timid maya waxay ii soo qortay keliya qoraalkii yaraaye meesha soo saaraysa xalay ee ahay waa waraaqadeedan qaatay ee aan dhahay something intaas keliya waa sax kaa furay ha waxaan inima soo dirin okay horta arrintan waxay ku fiican tahay culummadan aan oo dad basanaynaa kulletaba hadda odayaasha sarurna waa saaran yihiin laandheere iyo cifiid waa saaran yihiin ani waxaan qabaa in arrinta aan culummada aan ula laabano oon laga dhiginto baraac iyo wax oo fiis lagu raadiyo iyo wax lagu shito kiiskan kiis adag waay dhaqan ahaan ogaadeenka iyo habargiistuna kama dhexayso hadda wax dhacay dhaqan hore uga dhexeeyey ma aha dhaqanka noocaana marka waxaan qabaa arrinta qabiil ahaanna aan isku laabanno culummada Soomaaliyeedna qofku hadduu waxa sameeyo iyo xukunku wuxuu yahay iyo arrintii mataqaanaa aynu ka wada hadalno ayada iyo aabaheed iyo walaalaheedna aan la hadalno hadalkana bal hadda sandheera aan siiyo ninka laandheera aan siiyo laandheerna wuxuu nagu siyaadinaa dhegeysto laandheeraye war daahiro horta dhammaantiin aad iyo aad aan idin salaamayaa ninkaas walaalka